الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ku ballansanayn inaan ka jawaabo su-aashii ahayd maxaa cashar ah oo aan ka baran karnaa cudurkan corona disease 2019 ama covid-19 si aan caafimaadkeenna iimaankeenna iyo caqiidadeenna kor ugu soo qaadno waxaan kaloo idinka ballan qaaday in aan wixii abdayda idin siin doono waxaan soo horumarsanaa wixii abdayda ama inaan ka fahmna tahay cudurkaas ayaan soo horumarina waxaa ugu horeysa oo maanta aan ka hadli doono haddii waqtigii ii saamaxana kuwa kale aan samayn doono hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka hadli doona arrintan waa 15 to 20 minutes insha allah waa hafaafinin cudurkan hafaafinin stop spread hafaafinin cudurkan waana waanada ay bixinayaan hay-adaha adduunka oo dhan hay-adaha caafimaadka iyo adduunka sida ani gobolka aan joogo alberta health care canada health ama wasaaradda caafimaadka ee canada world health organization center for disease control and prevention oo ah center lagu cadeeyo loogana hortago jirooyinka ee dalkaasi maraykanka iyo hay-ado aada u fara badan oo ku howloon siday wax ooga qaban lahaayeen cudurkan covid-19 talooyinka ay bixinayaan waxay tahay in qof kasta oo adduunka ku nool la baro calaamadihii uu ku garan lahaa in cudurkani qaabadda cudurkani loo qaado iyo sidii uu isku ilaalin lahaa marka hay-adaha waxay isku dayayaan in si guud loo wada shaqeeyo shacabka iyo professionalkii caafimaadka oo dhan so aan ku celiyo mar labaad ta koowaad waa sidii qofkan uu ku garan lahaa inuu cudurkan qaaday oo calaamadihiisa ay ku jiraan iyo hadduusan cudurka qaadin sidii uu isaga ilaalin lahaa marka arrinta aan ka hadlayo waa laba arrimood in qofku aqoonsado in uu calaamadihii cudurkan qabo iyo in dadka qaaday cudurkan already qaaday laga dhex saaro bulshada sidoo kale in qofka hadduu fahmay inuu cudurka qaaday uu isaga iska dhex saaro bulshada inta uu ka helayo caawimaad ama uu ka wacanayo hay-adaha ku shaqada inay cadeeyaan iyo inay daaweeyaan cudurada marka hadda fariintaas aan idin siiyey waa fariinta ka imaatay hay-adaha waxayna yidhaahdeen waa sida keliya ee lagu joojin karo ama lagu xakamayn karo cudurkan coronavirus 2019 coronavirus disease 2019 ama covid-19 loogu magac daray ee qof kasto maanta attentionkiisa u taagan yahay marka su-aasha ku saabsan sidee qofka ku ogaan karaa ayaa waxaan rabaa inaan qaybo ka mida idiin soo bandhigo insha allah marka qofka cudurka qaado isla markiiba cudurkan horta kuma soo boodo oo qofka isla markiiba ma soo dhaco waxaa jiro waqti u dhexeeya waqtiga qofka cudurka qaado iyo waqtigu qofka cudurka ku dilaaco oo jiradii ula soo dhacay waqtigaas u dhexeeyo waxaa lagu qiyaasay 2 beri markuu qofka cudurka qaaday kasoo bilaabato 2 beri ilaa iyo 10 beri
ama 2 beri ilaa iyo 14 beri. waana meeshay ka imaanayso hadduu qof kuu soo safray oo kuu imaado in meel lagu hayo 2 usbuuc si markaas loo ogaado inuu carrier ahaa. haddii cudurkii uu sidayna marka qofkii wuu jiranayaa waana laga daaweynaa insha allah. haddii qofkii uu jiranayna dee 14 beri waa qofkaas cudurkaas ma qabo. waqtigaas marka u dhexeeyo qofka markuu cudurka qaado ilaa iyo 14 beri 2 beri ilaa iyo 14 beri yani 3 beriyay noqon kartaa 4 beriyay noqon kartaa 5 beriyay noqon kartaa. dadku way kala immune system duwan yihiin. durationka ama waqtiga ay qaadanayso ayaa lagu qiyaasay 14kaas beri. waqtigaas isaga ah ee u dhexeeyo qofka markuu cudurka qaado ilaa qofka cudurka ooga dilaacayo ayaa waxaa loo yaqaanaa incubation. luqadda afka qalaad lagu yaqaanaa incubation. marka waxaa idin siinayaa calaamado tilmaami kara in qofka cudurkan covid u qaaday in kale. waxaa ka mid ah oo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga eega ah neefsiga qofka. calaamadaha ugu horeeya ee qofka uu isku arki karo ama lagu arki karo waa severe difficult breathing ama qofka oo neefsigii ay si xooga ugu adkaato ama neeftii oo qofka ku yaraato. waa 2 arrimood. neeftii oo qofka ayba safiir ugu adagtahay inuu neefsado iyo neeftuu qaadanaya qofka oo ku yaraatay. marka neefsiga oo qofka aad u dhibto waxaa laga wadaa qofka markuu hadlaya hadday neefsiga aad u dhibayso oo heerkaas ay gaarsiisan tahay safiirka waxay noqonaysaa in qofkaas uusan isku xiri karin markuu hadlayo erayo badan oo uu u baahan yahay inuu neefsado. yacni 1 eray iyo 2 eray ka badan iskuma xiri karo. almuhiim marka qofku neefta ku yartahayse weli uu hadlayaa erayadii uu isku xirayaa laakiin iyadana waxaa dhiba in qofkaasi uu jiifsado ama layown kareeyo isagoo u baahda waxyaabo saboorti gareeyo si uu u neefsado. soo neefsigaas ama yaraanayo ama qofka aadka ugu adkaanayso waa calaamadaha ugu waaweyn ee qofka uu dareemi karo. wuxuu kaloo qofka dareemi karaa xagga hurdada. hadduu seexdo hurdadii kama kici karo. way dhibaysaa hurdadii inuu ka kaco. wuxuu dareemayaa fatiig iyo caajis uusan hore u lahayn oo aad uga fara badan. caajis hadduu caajisoola ahaad kasii fara badan midkuu hore u lahaa. intaas waxaa soo raaci kara in qofka laga yaabo in jahawareer uu ku imaado oo is yirahdo maxaa kugu dhacay oo uu yara jahawareer ama yara xagga miyirka uu wax ka dareemo oo miyir beel ahaan inay ku dhacdo laga yaabo haddii neefsigii uu sii ziyaado ku xirmaysay miyir beelkana asagana u imaan karaa oo waxyaabaha ay neefsashada markii ay adkaata ay keeni karta ayay ka mid tahay. waxaan idiin sheegaa in qofka aan la dhihi karin right away corona virus 19 aad qabtaa ilaa test lagu sameeyo. laakiin maadaama cudurkan uu aad u fidaayo ay adkaatayna dhakhaatiirtii iyo professionaalkii naftirkoodina ay ku adkaatay oo xawligiisa uu aad u socdo dhaqso la kala qaado. waxaa habboon qofka markuu calaamadahan isku arko in isaga bulshada uu iska dhex saaro kabacdigeedna caawimaad iyo wixii loo raadin karo markaas loo raadiyo. su-aasha marka goormaan dhakhtarka raadsadaa really aan u jirana markii qandhadaada ay aad zaa'id u noqoto. markii qandhadaada zaa'id noqoto 38 ama 38 degrees ay kor u dhaafto qufacaaga aad u bato zaa'id noqdo neefsiga sidaa hore usoo sharaxnay ama uu kugu yaryahay ama ay aad iyo aad kugu adkaato inaad neefsato cunaha oo cuna xanuun kugu dhaco ama sore throat waxaa loo yaqaano
calaamadahaas marka isku aragto waa calaamadaha kuu sheegayo inaad ka badbaadiso dadka aad la nooshahay iyo dadkaa jeceshahay iyo walaalaha iyo dadka ku ag joogo iyo dadka ku jecel inaadan aadin meelaha lagu kulmo weliba qof muslin haddaad tahay masaajidada weli qaara wadamada qaar furan inaadan masaajidka aadan la tegin marka hore adiga aad ishubsato dadkan aad u jirsato ilaa iyo 2 mitir sankana aad wax ku xirato almuhiim maaskaadaadan haysa inaad sankaaga wax ku daboosho si aysan wax kaaga soo bixin oo dadka kale u gaarin halkaasaan ku joojinaa updatekan insha allah qaybta kale aan ballan qaadayna hadduu waqtiga ii saamaxo si sabrayda ayaan iyadana u duubi doonaa waqtiga oo igu yar awgis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu